bismillaahi raxmaani raxiim. subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada warka subax ee Radio Rugsan. qodobada saaka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose oo lagu wado saacadaha soo socda in lagu aaso meydka wariye Cabdiweli Cali online oo xalay kooxo hubeysan degmada Afgooye ay ku dileen. ururada suxufiyiinta FESOJ iyo SJS oo cambaariyay dilka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose loogu geystay Allaha u naxariistay wariye Cabdiweli Cali online. maamulka ahlu sunna Galmudug oo ka hadlay amniga deegaanada Galmudug baaqna u diray beesha caalamka. ardayda Puntland oo la sheegay in loo ogolaaday shahaadooyinka dugsiga sare ee ay bixiso wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. taliska ciidanka xooga dalka ugu baaqay ciidamada tababarka ku soo qaatay dalka dibadiisa in ay ka qayb qaataan howlgallada amniga lagu sugayo. siyaasi ku baaqay in la xaliyo khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo dowladda federaalka soona dhaweeyay shirkii dhawaan uu ku baaqay madaxweynaha maamulka Puntland. nin la sheegay in uu ka digay weerar ay al-shabaab ka geysan doonaan Kenya oo la xiray. akhbaaraadka caalamkana waxaad ku maqli doontaan wasiirad ka tirsan dowladda Faransiiska oo u tartami doonta xilka duqa magaalada Paris. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walbo aad joogtaan. waa subax isniina, taariikhduna ay ku aastaysan tahay 17 Febraayo sanada 2020. anigoo Faadumo Abuukar Cabdi ayaa warka saaka idinla socodsiinaya, waxaana ii farsameynaya Cabdimajiid Bakar, waxaa soo saaray Ilyas Daa'uud. markana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan. degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda in lagu aaso meydka wariye Cabdiweli Cali online oo xalay ay kooxo hubeysan degmada Afgooye ay ku dileen. waxaa goordhow inooga waramay qabanqaabada aaska iyo sida ay u socoto maxamed cabdinaasir ayaanle. ilyas daawud aad oo maasan tahay. xalay fiidkii kooxo hubeysan ayaa degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku toogteen wariye Cabdiweli Cali online oo kamid ahaa howlwadeenada TV-ga Universal, gaar ahaan wuxuu ahaa wakiil wareedka Universal halkaas uga soo warrami jiray guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdiweli online markii kooxahaasi ay bistoolada ku garaaceen ama ku dhufteen, waxaa loo soo qaaday dhaawaciisa deegaanka ceelasha biyaha dowladka Muqdisho isbitaal ku yaalo si halkaas loogu baxnaaniyo. intii uu soo socday sida ay noo sheegeen qaar kamid ah heladiisa ayuu jidkii ku geeriyooday, tiisa ayaa soo dhamaatay. Cabdiweli Cali online Allah u naxariisto. waxaa maanta lagu wadaa saacadaha soo socdo in aas lagu sameeyo degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose. aaskaasi sidoo kale Ilyaaso waxaa lagu wadaa inay ka qayb galaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, guud ahaan bahda TV-ga Universal, maamulka ugu sareeya ilaa guud ahaan shaqaalaha. waxa ay murugada iyo sidoo kale dareenkaas xanuunka badan ay la qaybsanayaan marxuumka ehelkiisa iyo sidoo kale guud ahaan qaraabadii uu ka baxay iyo saaxiibadiiba in samir iyo iimaan uu Allah ka siiyo. dabcan Cabdiweli Cali online wuxuu ahaa marka aad fiiriso wariyaasha inta badan ugu firfircoon gobolkaas Shabeellaha Hoose, wararka kala duwan soo dira. marka aad fiiriso dhinacyada kala duwan hadba warkii markaas qosay ayuu soo gudbin jiray. waxaan leenahay rabbi ha u naxariisto guud ahaan bahda saxaafadda. waxaan leenahay insha Allah samri iimaan Allah ka siiyo. kaasi waxa uu ahaa wariyaheena maxamed cabdinaasir ayaan la inooga warbixinayay aaska Cabdiweli Cali online oo lagu wada saacadaha soo socda inuu ka dhaco degmada Afgooye. dhinaca kalena ururada suxufiyiinta ee FESOJ iyo SJS ayaa cambaariyay dilka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose loogu geystay Allaha u naxariistay wariye Cabdiweli Cali online. mahad mutawakkil ayaa warkaan inoo faahfaahinay. kooxa ku hubeysan bastoolada ayaa ku dilay gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Allaha u naxariistay wariye Cabdiweli Cali online oo kamid ah suxufiyiintii ka howlgali jiray gobolkaas kuwooda ugu firfircoon. marka hore dhaawacan ayaa lagu soo qaaday goobta lagu dilay, waxaana la sheegay inuu u geeriyooday dhaawacaasi. ururada u dooda xuquuqda suxufiyiinta ee kala ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NASOJ iyo waliba ururka suxufiyiinta ee FESOJ ayaa siyaabo kala duwan ugu tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay wariye Cabdiweli Cali online waxana ay sheegeen amina xilligan ka xun yihiin ee cambaarayeen geeridaasi.
sidoo kale mas-uuliyiintan qaarkood oo la hadlay raadiyaha rugsan ee muqdisho ayaa sheegay in loo baahan yahay in baaritaan dhaba lagu sameeyo qaabka dilka u dhacay. allaha u naxariistay wariye cabdiweli cali online oo ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye. xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj macalimu aniraade fesoj macalimu oo wareysi gaara siiyey raadiyaha rugsan ee muqdisho ayaa sheegay in loo baahan yahay in maamulka gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan saraakiishooda laamaha ammaanka ay bilaabaan baaritaan dhab ah kuwaasoo lagu ogaanayo kooxii ka dambeeyey dilka. laba dhalinyaro oo la sheegay inay ku hubaysnaayeen bastoolada ayaana dilay cabdiweli cali online oo qaab dhaawac ahaana loogu soo qaaday goobta dilka uu ka dhacay, balse intii waddada uu ku soo jiray oo u geeriyooday dhaawacaas maadaama la sheegay rasaasta ay ka haleeshay qaybta sare ee jirka gaar ahaan madaxa, halkaas oo la sheegay inuu dhiig badan ugu daatay. macalimu wuxuu intaa ku daray in loo baahan yahay in mar walba la raadiyo xuquuqda suxufiyiinta Soomaaliyeed. wariye Soomaaliyeed cabdiweli cali xasan oo wariyaasha afgooye ka howlgala ka mid ahaa runtii waxaa nagu soo gaartay in wariyahaasi markii hore la dhaawacay haddana xaqiiqo noqotay in uu dhintay oo dhaawacyadii u dhintay kadib markii laba nin oo hubaysan ay 3 xabadood maaragtay xabado ugu dhufteen. runtii waa arrin maaragtay aan muddaba ayaamahan ka wanaagsanayn, marka aad wax u nahay inay soo noqoto arrintaas. waa cambaaraynayna waxaanan ugu baaqaynaa maamulka degmada afgooye kan shabeellada hoose inay gacanta kusoo dhigaan oo ay la yimaadaan cid allaala ciddii ka dambeysay dilka wariyahaasi oo aanay noqon meel looga haray. runtii wariye Soomaaliyeed oo hawshiisa gudanaya in dhibaato intaa la eg loo geysto oo gurigiisa isagoo u socdo shaqadiisa ka baxay la dilo waa runtii wax aad looga xumaado lamana aqbali karo. marka maamulku waxaan ka codsanaynaa inay war arrintaasi ay naga siiyaan iyo siday wax u dhaceen. dadka sida ay sheegayaan maaragtay wariyaha aad u maaragtay markiisa horeba maadaama ay afgooye muddooyinkan iska qarinayd u gaagaabsan jiray shaqadiisa iyo gurigiisa ku ekaa, haddana waxaad moodaa inuusan ku nabadgelin oo isagoo gurigiisa ku socda maaragtay la weeraray. waxaa la sheegay haddana in maaragtay markii uu dhaawacmay xitaa gaadiid kale la waayo isbitaal loola cararay. isbitaalkii markii maxalliga ah la geeyay yiraahdeen waxba kama qaban karno, haddana loo soo gudbiyo maaragtay la yiri xamar laga gaarsiiyo ama ceelasha biyaha isbitaalada ku yaal hala gaarsiiyo. intaan ceelasha maaragtay soo gaarin la xaqiijiyay inuu dhintay. marka waa wax aad looga xumaado xataa gaadiidka lagu qaaday inuu maaragtay bajaaj ahaa waxay muujinaysaa in xitaa daryeel fiican iyo maaragtay aysan jirin iyo cid markaa u gomanaysa wariyaashii. marka waa wax laga xumaado. insha Allah annagana maaragtay aaskiisaan ka qaybgeli doonaa. waxaan maaragtay ugu baaqaynaa dhammaan hay'adaha amniga inay la yimaadaan oo looga fadhiyaa inay gacanta kusoo dhigaan ciddii ka dambeysay dilkaasi. wallahi runtii maaragtay waa wax saameyn weyn loo baabuur inaysan isticmaali karin, baabuurta aysan soo bixi karin, qof dhaawac wada oo xaalad emergency ku jira maaragtayna in la dahdaahiyo oo amni ciidamo amni ay dhahaan waa hubinaynaa iyo muxuu yahay iyo wejigiisa hala arkay iyo inta la xaqiijiyo. waa garan kartaa culayska qof oo dhaawac oo madaxa 3 dhaawac iyo xabad kaga taalo waxa uu maaragtay mudan karo. marka aadaan wax u nahay wixii dhacay, laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay ay noqoto qof kastoo Soomaaliya ay waxaasi qabanayaan kaliya wariye ma qof kastoo afgooye ka imaanayaan, qof kastoo soo baxaya ay dhibaatadaas saameynaysaa in cid kasta oo amni ka shaqaynaysa ay u dhimriso dadka Soomaaliyeed oo aan lagu xadgudbin oo dhibaato. maxamed ibraahim macalimu xogayaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Fesoj ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo dhimriyo dadka birmigeedada ah, waxaana intaa ku daray in ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyagana laga rabo in xilligan baaritaano adag ay ka sameeyaan kiiska ku geeriyooday allah u naxariistay cabdiweli cali online oo ka mid ah suxufiyiinta ka howlgalayay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye. waxa uu wakiil wareed u ahaa TV-ga Universal iyo idaacadda maxalliga ee kulmiye. cabdiweli cali online waxa uu ka mid ahaa suxufiyiin dhowr ah oo siyaabo kala duwan xilligan loogu dilay gudaha dalka, waana suxufigii ugu horeeyay oo sanadkan 2020 lagu dilo gudaha dalka Soomaaliya. maamulka ahlusunna galmudug ayaa waxay ka hadleen amniga deegaanada galmudug iyagoona baaq u diray beesha caalamka. Ilyas Daawud Xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
madaxweynaha galmudug garabka ahlu sunna sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu kaga hadlay xaalada deegaanada galmudug isagoo dhanka kalena baaq u jeediyay dowladda federaalk iyo beesha caalamka. sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dhiso gole loo dhan yahay oo u xilsaaran federaaleynta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka gobolada inta ay ka joogaan halkaasi deegaanada galmudug waa sida loo qoray war-saxaafadeedkan ayaa sheekh maxamed shaakir sidoo kale waxa uu kaga hadlay ciidamada ay tababareen wadamada mareykanka iyo turkiga ee kala ah gorgor iyo haramcad in loo adeegsado caburinta shacabka iyo dano siyaasadeed ayuu kaga digay war-saxaafadeedkiisa. sheekh shaakir ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xaalada galmudug haatan ay u muuqato mid shabaab dib loogu beerayo waa sida lagu qoray war-saxaafadeedka. waxaana sidoo kale uu ku sifeeyey galmudug in haatan ay tahay mid cakiran islamarkaana xaaladeeda aysan wanaagsaneyn. waxaana ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanada galmudug in ay isku duubni muujiyaan islamarkaana ay u diyaargaroobaan xasilinta amniga deegaanadaasi. waxaana dhanka kale beesha caalamku uu u diray fariin ku aadan in dowladda federaalka soomaaliya ay ku guuldareysatay wax ka qabashada xaaladaha deegaanadaasi ka jira. war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay xafiiska sheekh maxamed shaakir oo ah madaxweynaha galmudug garabka ahlu sunna ayaa sidoo kale waxaa lagaga hadlayaa xaalada galmudug si loo dejiyo in wadatashiyo la sameeyo islamarkaana wadatashyadaasi dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo cid kasta ay qusayso galmudug in xaalada galmudug ay ka hadasho islamarkaana xaaladda deegaanadaasi la dejiyo. ardayda puntland ayaa la sheegay in loo ogolaaday shahaadooyinka dugsiga sare ee ay bixiso wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya. ilo xog ogaal ah oo ka tirsan madaxtooyada puntland ayaa warbaahinta rugsan u xaqiijiyey in xukuumadda federaalk soomaaliya ay si rasmi ah u ogolaatay bixinta shahaadooyinka ardayda reer puntland. saraakiil diiday in magacooda la xigto oo ku sugan madaxtooyada puntland ayaa sheegay in arrintaasi ay dadaal badan ku bixiyeen xildhibaano iyo mas-uuliyiin xilal ka haya xukuumadda federaalk oo kasoo jeeda deegaanada puntland. sidoo kale waxaa dadaalkaas la mid ah sameeyey qaar ka mid a isimada ugu caansan puntland oo magaalada muqdisho kula kulmay mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana cadaadis ku saaray in mustaqbalka ardayda puntland aan loo xanimin arrimo siyaasadeed. ugu dambeyntii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo xalay qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne deni ayaa u xaqiijiyey in xukuumadda federaalku ay ka laabatay go-aankii ay ku xanibtay shahaadada ardayda puntland. ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha puntland ayaa ka wada hadlay arrimaha farsamo oo ka dhiman dhamaystirka isfahamka laga gaaray shahaadooyinka ardayda puntland. taliska ciidanka xooga dalka ayaa ugu baaqay ciidamada tababarka kusoo qaatay dalka dibadiisa inay ka qeyb qaataan howlgalka amniga lagu sugayo. mahad mutawakil ayaa warkan mar kale inoo eegaya. cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwooda sida gaarka u tababaranee gumaad dooska qeybtooda gorgor oo laga keenay dalka turkiga ayaa shalay lagu soo dhoweeyey garoonka diyuuradaha aadan cadda ee muqdisho. soo dhoweyntan ciidamadan ka mid noqonaya kuwa xoogga dalka sida gaarka u tababaran ee gorgor waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan maxamed cali amar dambe iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowa yuusuf raage. taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowa yuusuf raage ayaa sheegay in ciidankan ay qayb ka qaadan doonaan howlgallada lagula dagaalamayo dagaalyahanada xarakada al-shabaab lagana fulinayo qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya. waxaana uu sheegay in ciidamadan marka ay soo dhammaystirmaan lagana keeno guud ahaantooda gudaha dalka turkiga la bilaabi doono howlgal ka dhan ah dagaalyahanada xarakada al-shabaab. waxa uu sheegay in dhammaan loo dhammaystiray qalabkooda iyo weliba hanaankooda ciidannimo. waxaana intaa ku daray in xuquuqdooda si joogta ay u heli doonaan ciidamadan ka mid noqonaya kuwa dowladda federaalk soomaaliya. wuxuu si gaara ula dardaarmay inay ka dhabeeyaan sida uu sheegay dib u xoreynta qaybo badan oo ka mid a gudaha dalka soomaaliya. waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay muxuu ahay sheegay guud ahaan gobollada dalka ay ka fulinayaan
gaar ahaan la dagaalanka muxuu ahay ii sheegay nimankan nabad iyo nolol diidka ah oo ummadda Soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nasashadii idanka Ilaahay waxaan rajaynaa in muxuu ahay ii sheegay ummadda Soomaaliyeed ay u fi doonto mustaqbal wanaagsan nolol wanaagsan kanaan dul qaadi doono Ilaahay idankiis dhibaatooyinka iyo waxa heesta ciidanka maanta halkaan aad timideenna aad qayb weyn ka qaadan doontaan waxaan leeyahay marka ku soo dhawaada dalkiina hooyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad soo qaadateen aqoon aad muxuu ahay ii sheegay ku caawin doontaan ama ku saacidi doontaan ummadda Soomaaliyeed ugana saari doontaan dhibaatooyinka iyo marxaladaha ay ku jiraan cutubyadan ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaaraan kuwooda sida gaarka u tababaran ee gorgor ayaa siyaabo kala duwan loo keenay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho toddobaadkan waa markii labaad ee la keeno magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidamo tababar ku soo qaatay gudaha dalka Turkiga garoonka diyaaradaha Muqdishona waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yusuf Raage nin la sheegay in uu ka digay weerar ay al-shabaab ka geysan doonaan Kenya ayaa lagu soo waramayaa in la xiray maxamed cabdi xasan afgooye ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya booliiska dalkaasi waxay sheegeen in shalay gacanta ay ku dhigeen nin Kenyaan ah oo lagu eedeynayo in dignino been abuur ah uu ku faafiyay bartiisa Facebooka wargeyska The Standard Media ayaa qoray in booliiska gobolka Bomet ee bartamaha dalkaasi gacanta ay ku dhigeen in lagu magacaabo Timothy Koch oo lagu eedeeyay in warar digniin ah uu ku faafiyay bartiisa Facebooka eedeysanaha waxaa la sheegay in uu ka digay in al-shabaab ay ku sugan yihiin Nakuru isla markaana ay qaadi karaan weeraro la mid ah kii lagu qaaday jaamacadda Garissa University ninkaasi ayaa la sheegay in laga soo qabtay tuulada Jabanganya sida uu sheegay taliye-xigeenka booliiska gobolka Bomet Stephen Weda sarkaalku waxa uu sheegay in eedeysanuhu uu ku faafiyay baraha Facebook group warar been abuur ah oo uu ku sheegay in al-shabaab ay qorsheynayaan in weerar ay ku qaadaan macadka teknolojiyadda ee Rift Valley oo ku yaala Nakuru taliye ku-xigeenka gobolka Bomet Stephen Weda oo la hadlay wargeyska The Standard Media waxa uu sheegay in eedeysanaha uu isku qarinayay magac kale ee Joseph Lancat oo uu isticmaalo bartiisa gaarka ee Facebooka dhinaca kale eedeysanaha oo baxsad ku jiray isbuucii hore ayaa la sheegay in la xiray kadib markii booliiska loo farmuuqay eedeysanahaasi mahadsanid afgooye siyaasi ka mida siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in la xaliyo khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu dhinaca kale soo dhaweeyay shirkii uu dhawaan ku baaqay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni Ilyas Daawud Xasan ayaa mar kale warkan eegaya isaga oo la hadlayay warbaahinta Rugsan Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed horena xilal uga soo qabtay dalka ayaa waxa uu ka hadlay qaabka lagu xalin karo khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland waxaana uu sheegay in Puntland looga baahan yahay in ay u hoggaansato waxa sharciga uu dhigayo isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya mas'uul ay ka tahay dalka waxaana inta uu ku daray in isaga rajo wanaagsan uu ka qabo in la xaliyo khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland waxaana dhinaca kale uu soo dhaweeyay shirkii dhawaan uu ku baaqay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ee looga hadlayo xaaladda Puntland inta la yimaado la qashado waxyaalaha khaladka ah iyo waxyaalaha saxda ah iyo wixii khaldan iyo wixii saxmay laga wadaa aqalka sare siyaasiyiintiisu xildhibaanadoodu way tegayaan wixii ay ansixiyeen oo ay u arkeen inay maslaxad u tahay inay ka wada hadlaan weeyo maxaa tan ah iyo halkee wax marayaan maxaan ku khaldannahay maxaanse ku saxsannahay in la isweydiiyaa way wanaagsan tahay oo la wada hadlo waan soo dhaweynayaa shirkaas waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe maslaxadda guud horta inay fiiriso mar walbana sidii maslaxadda ku jirto iyo danta ay ka shaqayso wax la yidhaahdo horta faraha ha laga dhowro ha la turo oo faraha ha laga dhowro way soo dhammaatay sababta waxa weeyaan
faraha ka dhowra yaan la caroone iska ilaaliya meel laguma gaarayo sida xaqiiqada ah oo sharcigu qabo inay ku socdaan kuna maamulaan waddanka ayaan dowladda dhexe. siyaasi cabdulqaadir sheekh ismaaciil ayaa dhanka kale waxa uu sheegay dowladda federaalk soomaaliya in looga baahan yahay in ay dalka ka hirgeliso shuruucda kala gedisan ee loogu talagalay in dalka lagu hago islamarkaana dowlad goboleedyadu ay yihiin kuwa hoostagaya federaalka loona baahan yahay in dowladda federaalk soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda guud ee dalka. halkaad warkaasi subaxnimo kala socotaana dhegeystayaal waa redio rugsan 94.4 megahertz. markana akhbaaraadkii caalamka. wasiirad ka tirsan dowladda faransiiska ayaa u tartami doonta xilka duqa magaalada baariis. agnes buzayn oo haatan ah wasiiradda caafimaadka ee dalka faransiiska ayaa loo magacaabay inay noqoto musharaxa cusub ee u tartami doona xilka duqa cusub ee caasimada dalkaasi ee baariis. tallaabadani ayaa timid kadib markii musharaxii hore oo uu xisbiga talada haya dalkaasi soo magacaabay benjamin grifokes iska casilay musharaxnimadiisa kadib markii fadeexad la xiriirta muuqaalo anshax xumaa uu ku baahiyey baraha bulshada. hadal ka soo baxay madaxtooyada faransiiska ee Elise Blas ayaa lagu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo magacaabi doono wasiirka cusub ee caafimaadka ee bedeli lahaa wasiiradda caafimaadka ee Agnes Buzayn. wasiirka cusub ee caafimaadka ee dalka faransiiska ayaa la sheegay in loo magacaabi doono Olivier Ferran oo ah xildhibaan iyo dhakhtar. warkii subaxnimo dhegeystayaal oo aad kala socoteen radio rugsan saaka waa inaga intaa ciddii uu seego waxay naga xasuusina warkan iyo warar wixii caalamka ku soo siyaaday inay si sahlan uga baari karaan barteena internetka ee radiorugsan.com. halkani waa radio rugsan muqdisho Soomaaliya waxaad nagala socotaa 94.4 megahertz. mar walba waxaan kuu soo gudbinaynaa warar iyo barnaamijyo la hubiyey. rugsan radio idaacadda